bismillaahi raxmaani raxiim fiid wanaagsan khiyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa 15 May sanadka 2026 tabin kale oo kamid ah barnaamijka caawa iyo taxliilinta wararka caalamka iyo diblomaasiyadda janalka Cabdilcasiis Barrow qodobada aan idin haya waxa kamid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay 2 maalin oo kaliya inuu ku burburin karo wadanka Iran kaabayaasha ugu muhiimsan ee noloshana uu cardaadiqada ka dhigi karayo laakiin waxa uu sheegay dawladdiisu wali inay turaale ku jirto oo ay go'aan qaadan karayso madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa fariin xasaasi ah u diray wadamada dunida Islaamka waxa uu yiri waxay hadda ka dambeeya ahmiyad muhiim ah ayaan siin doonaa dunida Islaamka inagoo la samaysan doona xiriir gaar ah muxuu ka yiri muslimiinta ku nool wadankiisa kaalinta ay ku leeyihiin horumarinta bulshada muxuu si gaar ah gacan u siinaya xilligan muslimiinta dalalka caalamka Islaamka xilli dunida gobolka bariga dhexe ay ka taagan yihiin colaado qatara warbixin gaar ah ayaan ku faaqidi doonaa khiyaarta ay nala socotay waxaan sidoo kale eegi doonaa dawladda isu tagga Imaaraadka Carabta ayaa waxa ka soo baxaya warar isdiidan marka ugu horeysa waxa ay beeninayaan inay qayb ka ahaayeen weerarkii Mareykanka oo uu ku qaaday gudaha wadanka Iran iyo waliba nidaamka Israel isla markaana waxay si adag oo diidma uga jawaabeen hadalkii ka soo baxay Tehran dhinaca kale wargeysyada waaweyn ee galbeedka ayaa qoraya in dawladda Iran ay ku qalqaalinayso dalal ay kamid yihiin Sacuudiga iyo wadanka Qatar in ay qayb ka noqdaan weerar abaabulan oo wadamada Khaliijku ay ku qaadayaan Iran si ay uga aarsadaan tacadiyadii weerarkii dhacay intii lagu guda jiray dagaaladii 40 maalin ee February 28 ka bilowday gudaha wadankaasi Iran khiyaarta ay nala socotay qodobadaasi dhacdooyinka ugu dambeeya ee caalamka ayaa la fagurayaa ku soo dhawaada YouTube-ka oo subscribe saara oo mahadsantiin dalka Mareykanka Donald Trump oo dib ugu laabtay magaalada Washington ayaa wareysigii ugu horeeyay siiyay telefishinka Fox News sida aadka ugu dhow xisbiga Jamhuuriga waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka bariga dhexe iyo qorshaha abaabulka dagaalka ka dhanka dawladda Iran ee hadda dib loo abaabulayo sidii wadankaasi loogu qaadi lahaa weerar furan oo dawladda Mareykanku ay doonayso markan inay ku soo gabagabayso wadankaasi Trump ayaa wareysigan uu bixiyay waxa uu ku sheegay in madaxweynaha wadanka Shiinaha Xi Jinping ay isku afgarteen in dalka Iran aanu weligii helin hubka nuclear-ka isla markaana la furo marinka istiraatiijiga ee Hormuz isagoo si hadlaya waxa uu tilmaamay marka la eego xiisadda gobolka bariga dhexe Mareykanka wali inuu turaalo u sameynayo wadankaasi isla markaana uu awood u leeyahay guud ahaanba kaabayaasha dhaqaalaha ee wadanka Iran in uu soo gabagabeeyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay inuusan hoos u dhigin awoodda Iran ee adkeysiga cadaadiska iyo dagaalka wareysi uu bixiyay isagoo la hadlaya telefishinka Fox News caawa Trump waxa uu yiri Iran waxa ay la kulantay weerar culus oo aan weligood la rumaysan doonin sida ay u dhaceen waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada Mareykanku ay si wada kaca uga tageen booliyada kaabayaal muhiim ah oo ay Iran leedahay sida buundooyinka iyo xarumaha tamarta iyo daaqada balse uu sheegay in Mareykanku uu awood u leeyahay in gabi ahaanba la burburiyo kaabayaasha muddo 2 maalin gudahooda haddii aan go'aan laga gaarin buu yiri arrintaasi hadalkan ayaa muujinaya fariin cadaadis ah oo hanjabaad ah oo ka dhana dawladda Mareykanka dawladda Iran ee Tehran xilli xiisadda u dhaxaysa labada dhinac ay aad u sii kordhayso isla markaana ay muuqanayaan tabartii laga lahaa wadankaasi in dib loo abaabulo awoodooda inay hadda u muuqanayso in ay meesha ka sii baxayso iyadoo dawladda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran maanta ay sheegtay inay heegan xoog leh ku jirto oo ay doonayso inay ka jawaabto talaabo kasta oo Mareykanka ka yimaada haddana marka la eego waxa arrintii uu ka hadlay wasiirka amuraha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ee ahayd Iran in ay la kulantay weerar ka yimid Imaaraadka iyo dalal Khaliija waxa arrintaasi si weyn u beeniyay Abu Dhabi wasiirka amuraha dibadda ee dalkaasi oo la hadlay warbaahinta waxa uu tilmaamay go'aanadaasi soo baxay inay yihiin kuwa aan sal iyo raatoona lahayn wadankoodana uusan qayb ka noqon weerarka lagu qaaday dalkaasi Iran
dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa si adag u beenisay eedeymo uga yimi Iiraan oo ku saabsan inay ku lug leedahay dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay ka wadaan gudaha wadanka Iiraan. wasaaradda amuraha dibadda ee Imaaraadka ayaa jimcihii maanta sheegtay mar uu hadlaya wasiir dowlaha amuraha dibadda Khalifa bin Shaahin al-Maraar waxaana uu cadeeyay in diidmo buuxda ee Imaaraadku ay ka qabto eedeynta iyo hanjabaadda oo wax u dhimaya madax banaanida amniga qaranka iyo go'aanada madaxa bannaan buu yiri ee wadankaasi ay leeyihiin. hadalkan ayaa yimi kadib markii wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Iiraan Dr. Abbas Araghchi oo diblomaasiga muray uu ka hadlay shirkii ka dhacay magaalada New Delhi ay isugu imaanayeen wadamada ka soconaya dalalka BRICS ee ka soo horjeeda aragtida galbeedka uu hormuudka u yahay Mareykanka. waxa uu tilmaamay wadankiisa inuu yahay mid birlaba oo aad u diiday yiri waxa uu ku tilmaamay xadgudub uga imaanaya dalal dhowr ah oo isbahaysta oo ay kamid yihiin wadanka isutaga Imaaraadka. xiisadu ay sii kordhaysaa iyadoo qaybo kamid ah wadamada gobolku ay muujinayaan in laga cabsi qabo walaaca dagaal markale inuu dib u soo laabto. dhinaca kale xilli Imaaraadku ay diidayaan inay qayb ka yihiin weerarada ka dhanka ah dalkaasi Iiraan sida weyn loogu duqeeyo muddada 40 maalin ahayd oo Mareykanka iyo Israa'iil ay iska kaashanayeen. haddana wargeyska The Bloomberg ayaa ku waramaya in dowladaha Sacuudiga iyo Qatar cadaadis xoogan ay kala kulmayaan wadanka isutaga Imaaraadka kaasoo la xiriira in weerar lagu qaado dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan si looga jawaabo duqeymihii ay la kulmeen wadamada Carabta. hasaatee warar soo baxaya waxay tilmaamayaan in dalalkaasi ay si weyn u diideen warbixinada la xiriira amaan ilaahdee aragtida ka imaanaysa wadanka Imaaraadka ee ah dalkaasi Iiraan inay si wada jira u weeraraan. wargeyska caanka ah ee The Bloomberg ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabtu ay isku dayday inay ku qanciso dalka dariska la ah oo ay ku jiraan Saudi Arabia iyo dalka Qatar in ay qayb ka qaataan jawaab military oo midaysan oo ka dhana dalka Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan. balse qorshahaasi uu fashilmay kadib markii labada dal ay si weyn u diideen oo ay ka hor yimaadeen. sida warbixintu ay sheegayso madaxweynaha dowladda isutaga Imaaraadka Mohammed bin Zayed Al Nahyan ayaa xiriir la sameeyay hogaamiyaasha gobolka uu ka mid yahay dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Mohammed bin Salman Al Saud wax yar kadib markii Mareykanka iyo Israa'iil ay bilaabeen duqeymihii ka dhanka ahaa Iiraan 28 bishii February. ila xog ogaala ayaa sheegaya in bin Zayed uu rumaysnaa in loo baahan yahay jawaab wada jir ah oo Iiraan looga hortago taasoo keentay in uu la shaqeeyo maamulka madaxweyne Donald Trump iyo nidaamka Israa'iil. si kastaba hogaamiyaasha dalalka qaliishka ayaa warbixinta laga helaya waxa ay ku tilmaamayaan in Imaaraadku oo colaadan aysan ahayn buu yiri dagaalkooda isla markaana ay ka gaabsanayaan in ay ku lug yeeshaan dagaalka. dowladahaasi Carabta ayaa sidaas u sheegay dalka isutaga Imaaraadka. warbixintu waxay sidoo kale tilmaamaysaa in khilaafaadka hore ee u dhaxeeya Imaaraadka iyo Sacuudigu uu sii xoogaystay kadib diidmadii Riyaad ee ku aadan ka qaybgalka dagaalka. ilaa hadda dhinacyada la sheegay kulankan inuu dhaxmaray ayaan jawaab rasmi ah bixin marka la eego sida ay wax u socdaan. madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu tilmaamay in uu doonayo inuu iskaashi iyo xiriir weyn oo istiraatiiji ah uu la sameeyo dalalka dunida Islaamka si kaalmo buuxda uu u gaarsiiyo isla markaana ay noqdaan kuwa isku tiirsan. hadalkan oo ka soo baxay ama lagu sheegay afka ra'iisul wasaare ku-xigeenka wadankaasi ayaa waxa lagu tilmaamay in dalka Ruushku ay ku nool yihiin malaayiin muslimiin ah kuwaas oo kaalin wax ku ool ku qaata horumarinta nolosha iyo waliba geedi socodka guud ee amniga qaranka wadankaasi. hadalkan waxa uu ku soo aadaya xilli gobolka Bariga Dhexe ay ka aloosan tahay xaalad aan wanaagsanayn oo dagaal ah isla markaana dowladaha Islaamka qaarkood ay iminka wajahayaan kala qaybsanaan iyo dagaal xoogan.
madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dalkiisa uu ka go'an yahay horumarinta iyo xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee istiraatiijiga ee kala dhaxeeya dhammaan wadamada muslimiinta. fariin hambalyo ah oo loo diray baa yiri madasha Ruushka iyo dalalka dunida Islaamka ee Kazan Forum 2026 ayaa lagu sheegay in malaayiin muslimiin oo Ruushka ay haystaan diinta Islaamka isla markaana ay door weyn ka qaataan horumarinta dhaqaalaha, cilmiga, dhaqanka iyo adeegyada bulshada ee wadankaasi. Putin waxa uu xuseen muslimiinta Ruushku ay yihiin qayb muhiim ah oo kamid ah wadankooda isla markaana ay gacan ku leeyihiin kobaca qaranka. fariinta Putin ayaa waxa akhriyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Ruushka inta uu socda kulanka ciwaankiisu ahaa kooxda aragtida istiraatiijiga ah ee Ruushka iyo dunida Islaamka kaas oo ka dhacay magaalada Kazan ee caasimadda dalka Tajikistan. madaxweynaha dalka Ruushka ayaa sidoo kale xusuusiyay in Ruushku uu qayb ka yahay howlaha ururka iskaashiga muslimiinta isagoo ah dal kormeera ah ama korjoogta ah. magaalada Kazan sanadkan waxaa loogu magac daray caasimadda dhaqanka dunida Islaamka. hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli xiisada gobolka bariga dhexe aad u adag tahay isla markaana wadamada dunida Islaamku ay wajahayaan xiisad aad u xooggan marka la fiiriyo sida ay iminka wax u soconayaan. haddii aan eego qubanayaasha degdega ah ee caawa uu qorayo telefishinka Al Jazeera waxaan ku hormarayaa arinta la xiriirta dalka Lebanon. ururka xisbiga ayaa ku waramaya in ay diyaarado iswada ku garaaceen caawa qaybo kamid ah dhulka laga haysta Falastiiniyiinta oo ay ku sugan yihiin ciidamada ilaalada aan ilaahda Israel kuwaasi oo dagaalka qayb weyn ka ah. wasaaradda amuraha dibadda Mareykanka waxay leedahay in jawi wanaagsan uu ku socday heshiiska ama wada hadalka u dhaxeeya Lebanon iyo Israel si loo soo gabagabeeyo xiisadda waxaana dhinacyadu ay wadaan baa leeyahay in ay si weyn u sii xoojinayaan sidii dhinacyadaasi ay u sii socon lahaayeen si guul loo gaaro. qof ayaa ku geeriyooday mid kalena waa uu ku dhaawacmay kadib markii Israel ay duqeysay goob gurmadka degdega deegaanka oo yaala koonfurta wadanka Lebanon iyadoo lagu soo waramayo halkaasi duqeymaha ka dhacay inay ahaayeen kuwa aad u xooggan. ciidamada Israa'iilna waxay goor dhaweyd sheegeen inay iska caabiyeen saacadihii la soo dhaafay diyaarada iswada oo ciidamada ururka xisbigu ay ku garaaceen gudaha Lebanon dhulka ay uga sugan yihiin koonfurta. waxaana tan ay ku soo aadaysaa xilli kooxdu ay adeegsanayaan gantaalo aad u xooggan oo ay ka heleen wadankaasi Iiraan. fiid wanaagsan khiyaarta ay nala socotaa idilkiinba dunida meel kasta oo aad ka joogtaan. qaybtan intaas ayaan ku gabagabeynayaa. warar kale oo xiiso leh ayaa noo soo socda ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara. waa mahadsantiin.